kow waad aragtaan waxaa la yiraahdaa Mrs. Xiis gabadhan aniga hadda igu horeyso laakiin video-go somehow ma ka helay. labo Xaliim Gabaad iyo Axmed Saki. saddex Kinjama. afar Armaanta. shan Iqrayari. so shantaas video ayaa idin soo xulay. Bora, my best beautiful people. How you guys doing? Another beautiful day. Yes, it's good to be with my beautiful people. Aad baan idin salaama beautiful people isku soo noqdo wanaagsan. Haddii aad xasuusataan reaction-kay ugu dambeeyay oo aan ka sameeyay video-ga Iqrayari qaybihiisa dambe waxaan kaga hadlay in aan soo diyaarin doono 5 video ugu fiican bishan ama top best videos of this month. Marka 5 video waa 5 video aan soo xulay. 5 video na hal qof ma duuban production kala duwan ayaa duubay qaarkood Afrika jooga qaarkood Europe jooga qaarkood meel kala duwan adduunka kala joogaan hadaba shantaas video waxa laga yaabaa qaarkiin in madaxiina ku jiraan videoyadaas hadaba intaan ugu galin my beautiful people don't forget to subscribe right here hadii aragtid inaad ila wadaagtidna fariimane waxaad igala soo xiriiri kartaa Instagram-kayga right here my beautiful people inta aanan ugu galin canaynta waxaan wax yar idin ka tusayaa shanta video waa kuwe shanta video kow waad aragtaan waxa la yiraahdaa Mrs. Xiis gabadhan aniga hadda igu horeyso laakiin video-go somehow ma ka helay. labo Xaliim Gabaad iyo Axmed Saki. saddex Kinjama. afar Armaanta. shan Iqrayari. so shantaas video ayaa idin soo xulay hadaba waxaan bilaabi doonaa nambaradii waxaana ku garan kartaan before intuusan video-ga soo bixin waxa soo baxaya numberka soo baxa ayaan ku qiimeeyay video-ga hadaba markaan u guda galay nambaradana waxay ka bilaabanayaan 5 ilaa iyo 1 ilaa waa 5 video so I hope inaad diyaartiin my beautiful people habkan ayana ku dhici doontaa so let's go xaylka dhexdeenu siduu daboobi tilmaanteen tigsanayay waxtarkayga itunka soo fuu hagaag ruuxku jecel lama bado haqaaqe ubicaha shaqaani helay inaad ka wada hesheen labada video aad aragtaan oo number 1 iyo number 2 galay soo marka waxaan isku dayaa inaan wax yar ka yar hadlo labada video oo ugu fiican number 1 iyo number 2 galay labadaas video sababahan u jeclaaday waxay yihiin marka wax yar idinka ka taabto mid oo ah video galay number 1 oo ah Armaanta videogaas waxaan ku jeclaaday waa maskaxyo badan ka dambayso location-kiisu storyline-ka hadba beat-ki iyo video-giisu isku la socdo naftayda u daamayo kalarka sida loo habeeyay waxyaabo badan aan aad uga helaa jiro oo halkan aan kusoo koobi karin iyo magacyadiisii oo asturan looma malaynayo heesiya caadiga ah Soomaalida waxyaabo badan ayuu ka duwan yahay waa mid aanan isleeyahay in ay u bedelaano habkaas oo kaleeto heesaha Soomaaliyeed videoyadooda in sidaa oo kale laga dhigo ayaan jeclaalahay ilaa waa heerkaas xataa maysan soo gaarin videoyada Soomaalida aad bay wali u dambeeyaan so wali waxaan taaganahay heerkii la istaagsanay magacyadii la isaga soo qoray arooskii la mooday videoga
marka halkaas markaan kaga sii gudbo aanan faahfaahin kale aan usii gudagelin videoga sababahaas ayaan kaga helay oo waa wixiisu dhan waa full package waay ka labaad marka ugu gala oo iqrayaray ah iqrayar waxaan ku jeclaaday yarka duubasa qiyaasa Afrika uu jooga saasay tahayne waxyaabo badan ayuu meel saaray markaan fiirino magacyadiisii aad bay u asturin kaliya waxa dhibaato ku haysa asiga location-ka ku yar location-ka waa la isdhihi karaa Afrika qofka meesha uu rabo camera kuma duubi karo oo waxyaabo badan iska jiro hadii timaado dadkii bulshada ma jecla camera inay qabato so waxaan isleenahay location-kani taasa daliilkiisa aadadan laakiin habka uu isugu soo diyaariyay colorkiisa wax kasta markaan ka eegana aad baan uga helay videogaas so my beautiful people intaan ku soo gabagabeynayna aad baan u mahadsantiin adigana fikirkiina waa muhiim oo hoosta ku soo qoro kuwaad isleedihiin way u qalmaan ama way fiican yihiin so see you the next episode my beautiful people.